bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan waxaan ahay Muulid Xaaji halkan waa National TV qodobada wararkeena xilligan waxa ugu waaweyn khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo dib u qarxay iyo warqad xilka looga qaadayo taliyaasha militariga booliska iyo nabad sugidda oo la diyaariyay wararkii ugu dambeeyay qorshe culus oo ka socda xafiiska Roble ayaan idin hayaa madaxtooyada Soomaaliya oo dacwad ka gudbisay wakaalad caan ah oo faafiyay war been abuura oo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya wararkeena kalena waxa kamid ah abraacyadii doorashada ee lagu heshiiyay oo fashilmay kadib markii musuqmaasuqa doorashada golaha shacabka ay faraha ka sii baxday wararka caalamka waxa ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xaqiijiyay in ciidamadiisa ay howlgal ku dileen hogaamiyihii Daesh Imaaraadka Carabtana diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa duqeymo ka fuliyay qodobadaasi oo dhan ayaad warkeena ku daawan doontaan waa Jimco 4 Febraayo 2022 fadlan daawade aan ka qayb qaadano dhismaha dalkeena anagoo ka fogaanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasi nala fahantaane fadlan nala faafiya warkan idinkoo ku sheer gareynaya baraha bulshada aan ku bilaabo warkeena xogo lagu kalsoonaan karo oo ay heshay National TV ayaa sheegaya in golaha wasiirada kulankooda ugu soo horeeya la doonayo xilka qaadis lagu sameeyo taliyaasha ciidamada qaarkood xogta waxay sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka carooday damaca Villa Soomaaliya iyo baarista wararka lidiga ku ah ee sharaf dilka loogu sameynayo inuu tallaabo qaadi doono xukuumadda ayaa ku eedeyn doonta taliyaha militariga General Odoba Yusuf Raage inuu garab maray wasiirkii uu hoostagayay ee gaashaandhiga isla markaana ciidan u diray magaalada Beledweyne toddobaad ka hor welina amarkii ra'iisul wasaaraha bixiyay ee dib u soo celinta ciidankaasi gorgor aan la tixgelin taliyaha ciidanka General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo agaasimaha kumeelgaarka ah ee hay'adda NISA gaashaanla sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Farey ayaa laga yaabaa in iyaguna xilka qaadista ay la kulmaan saddexda taliye ayaa toos u hoostaga Fahad Yaasiin oo saaxiib la ah madaxweyne Farmaajo sidoo kalena ah la taliyaha amniga qaranka waxaana soo dadejinta xilka qaadistooda ay culays gelin kartaa doorashada golaha shacabka ee dalka ka socota khilaafkan cusub ee la hadalhayo iyo xilka laga xayuubinayo garbaha madaxweyne Farmaajo ayaa laga digayaa in buuq siyaasadeed oo la isla og yahay laga dhigo iyadoo shacabka la marin habaabinayo shalay ayuu ra'iisul wasaare Roble dalka dib ugu soo laabtay waxa uu safar 4 cisho ah ku maqnaa isu taga Imaaraadka Carabta oo lacago mahad celin ah inay soo siiyeen loo maleynayo isweydiinta ayaa ah golaha wasiirada haddii ay xilka ka qaadaan saddexda taliye ciidan ee militariga NISA iyo booliska sidee ku aqbali doonaan xilka qaadistaasi hore madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay in Roble uu shaqada ka joojiyay maadaama xukuumaddiisa ay ku fashilantay hawshii loo xilsaaray ee doorashada balse Roble isna hadlay ayaa ku sheegay arintaasi mid aan sharci loo haysan oo madaxweyne Farmaajo yahay madaxweyne hore oo la mid ah murashaxiinta warkan la hadalhayo ee xilka qaadista taliyaasha ciidamada qaarkood wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan insha Allah waa tahay xafiiska warfaafinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dacwad u dirtay wargeyska caanka ah ee The Globe and Mail kaasoo 20kii bishii la soo dhaafay lagu daabacay warbixin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagaga been abuurtay inay qayb ka ahaayeen dagaalkii Tigray ee dalka Itoobiya isla markaana ay xasuuq ba'an ka geysteen gobolkaasi warqadan oo warbaahinta loo soo dusiyay kuna taariikhaysan 25kii bishii la soo dhaafay oo ku aadan 5 maalmood kadib isla maalinkii warbixinta been abuurka ah la daabacay ayaa lagu qoray luuqad adag oo xambaarsan fariin ah in dawladda Soomaaliya ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto wargeyska The Globe and Mail haddii aanu soo bandhigeen xaqiiqda dhabta ah ee ay ku salaysan tahay warbixinta been abuurka ah ee lagu daabacay qoraalkan ayaa sidoo kale lagu yiri warbixintu waa mid si cad loogaga been abuurtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan marna faragelin arrimo dalal kale dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waa ay ku faanayaan ciidankeena geesiyaasha ah oo u taagan difaaca dalka iyo dadka marna ma aha kuwo ku xadgudba xuquuqda aadanaha sida aad warbixintiina been abuurka ah ku sheegteen dhalinyaro lagu qiyaasay inay tiradooda gaarayso 7,000 ayaa tababar loogu qaaday wadanka Eritrea kuwaas oo in ka badan 3 sano ku maqan dalkaasi
waxaana ciidamadaasi la sheegay in tababar loo qaadayo balse waxaa jira warar sheegayay in ciidamadaasi qaarkood ay ka qayb galeen dagaalkii Itoobiya iyo Tigreega dhex maray laakiin warkaasi dowladda federaalka dhowr mar ayay beenisay. waa tahay qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan waxaad nagala socotaan National TV fadlan daawada subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho. magaalooyinka maamul goboleedyada waxaa ka socda doorashada golaha shacabka iyadoo sidoo kale doorashadu ay ku socoto si dardar leh hase ahaatee waxaa doorashadaasi hareeyay musuqmaasuq bahsan iyo in murashaxiinta qaar loo xiro kuraasta. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku tilmaamay doorashada haatan ka socota dalka inaysan ahayn doorasho balse ay tahay xulasho isla markaana murashaxiin badan laga hor istaagay inay u tartamaan kursiga beeshooda. dhinaca kale gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cusmaan Muxudiin Shaatax oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay in abraacyadii doorashada ee lagu heshiiyey 9kii bishii hore aysan dhaqan gelin. gudoomiye Cusmaan ayaa sheegay in xarunta ururada bulshada rayidka ay soo gaarayaan cabashooyin dhowr ah oo la xiriira doorashada golaha shacabka oo ku socota hanaan musuqmaasuq ah. bulshada rayidka waxay aad uga xun tahay in sidii ugu habboonaa loo hirgelin go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee 9kii January waxayna taasi aad u sii fogeynaysaa kalsoonida shacabka ay ku qabi karaan doorashooyinka dalka mas'uul ku soo baxa ayuu yiri. xarunta ururada bulshada rayidka waxaa soo gaaraya warbixino muujinaya in si dhammaystiran aan loogu dhaqmin qodobadii ka soo baxay heshiiska waxaana soo jeedinayaa in madaxda dowlad goboleedyada ay fuliyaan go'aamadii ka soo baxay shirkii Muqdisho. sidoo kale waxa uu sheegay in weli caqabado ka jiraan sidii loo xaqiijin lahaa nidaamka xulista ergooyinka xuquuqda murashaxa u taagan doorashada golaha shacabka iyo madax bannaanida gudiyada dowlad goboleedyada. gudoomiyaha ayaa ugu dambeyn sheegay in shaki weyn laga muujiyay xaqiijinta qoondada haweenka maadaama aan si rasmi ah loo dhaqan gelin qodobadii lagu heshiiyey wuxuuna ka dalbaday gudiyada in la soo hormariyo kuraasta haweenka. hadalkan wuxuu imaanayaa xili ay soo baxayaan in musuqmaasuq ballaaran uu ka jiro doorashada golaha shacabka iyada oo waqtiga loo qabtay in lagu soo gabagabeeyana ay ka harsan tahay 22 maalmood oo kaliya. weli wararka National TV ayaa daawanaysaan si aad u hesho warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno uu ku soo gaaro. goordhow wararka caalamka ayaan eegi doonaa. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyay in ciidamadiisu ay dileen hogaamiyihii Daesh hase ahaatee qadar yar. warar noocee ah ayaa doonaysaa ma wararkii ugu dambeeyay ma dhacdooyinka ka yaabiya mise kuwa ku dhiirigeliya ma doonaysaa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda hadday jawaabtaadu haa tahay National TV ka dhiga wehelkaaga booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga. waa tahay markasta xasuusno National TV booqo baraheena bulshada ee Facebook iyo YouTube adigoo raadinaya National TV waxaad halkaasi ka heli doontaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn hogaamiyihii kooxda Daesh ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Syria waxaa sidaasi maanta ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. weerarka ayaa lagu beegsaday Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi oo hogaanka kooxda mintidiinta ah la wareegay 31 Oktoobar sanadkii 2019 maalmo un kadib markii hogaamiye Abu Bakar al-Baghdadi uu ku dhintay howlgal ay Mareykanka ka fuliyeen isla aagaasi.
sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in al-Qurayshi uu u dhintay si lamida al-Baghdadi isaga oo isku qarxiyay bam dilay isaga iyo xubno kamid ah qoyskiisa oo ay ku jiraan haween iyo caruur kadib markii ay ku soo siqeen ciidamada Mareykanka. waxaa sidoo kale loo yaqiinay Amiir Muhammad Saciid Cabdurrahmaan al-Mawla. howlgalka ayaa yimid xilli ay Daacish isku dayayeen inay dib u soo laba kacleeyaan ayaga oo weerar dhowr ah ka fuliyay gobolka. ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ayaa ku soo degay diyaarado helicopter ah waxayna weerareen guri ay Daacish ku lahayd Syria ayaga oo isku dhac socday 2 saac u dhexmaray koox hubaysan sida ay sheegeen goobjoogayaal. dadka deegaanka ayaa sheegay israasaasayn xoogan iyo qaraxyo aad looga maqlay magaalada Atmeh oo ku dhow meel u dhow xuduudda Turkiga oo ay ku yaalaan xerooyin ay ku jiraan dad ku soo barakacay dagaalka sokeeye ee Syria. kooxaha gurmadka degdega ah ayaa sheegay in 13 qof lagu dilay iska hor imaadka oo ay ku jiraan 6 caruur iyo 4 haween ah. madaxweyne Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu amray weerarka si uu u ilaaliyo shacabka Mareykanka iyo xulafadeena ugana dhigo dunida meel amni ah ayada oo ay ku mahadsan yihiin ciidamadeena geesiyada ah ee xirfadda leh. waxaan goobta dagaalka ka saarnay Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi hogaamiyihii Daacish ayuu Biden ku yiri bayaan uu soo saaray. ugu dambeyn haddaan eegno dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay inay hawadeeda ku qabatay 3 diyaarad oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ayada oo mar kale lagu soo qaaday weerar. 3 weerar oo horey loogu qaaday Imaaraadka oo uu ku jiray mid gantaal oo dhacay Isniintii xilli uu dalkaasi booqanayay. madaxweynaha Israa'iil ayaa waxaa ka dambeeyay kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen ee Iiraan ay taageerto. weerarkii daroon ee Arbacadii ayaa waxaa sheegtay koox aan sidaasi loo aqoon oo lagu magacaabo Alwaad al-Xaq ama guutada balanqaadka runta ah oo qiil ka dhigtay faragelinta Imaaraadka ee Yemen iyo Iraq sida ay sheegeen kooxda Mareykanka ee arrimaha sirdoonka ee Site Intelligence Group oo la socota website-ka maleeshiyadan. wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ka hortagto halis kasta ayna qaadayso dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah si ay u ilaaliso dalka. dowladda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay inay diyaaradaha dagaalka u dirayso Imaaraadka Carabta si ay u caawiyaan kadib weeraradii lagu qaaday. weerarkii u dambeeyay ayaa noqonaya kii 3aad oo muddo bil gudaheeda ah lagu qaado Imaaraadka Carabta ayada oo weerar ay bartamihii Janaayo ka dhacay Abu Dubai ay ku dhinteen 3 qof kuna dhaawacmeen 6 kale. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii maanta aad ka daawanayseen National TV. inta ku kulmeeno wararkeena soo socda nabadgelyo.